sida ay ku dhawaaqday kooxda Serie A ka dhisan 28 sano jirkan ayaa ogolaaday heshiis 4 sano ah ugu biirayo kooxda Istoriyaalka Talyaaniga isagoo xora kadib markii uu soo idlaaday 11 sanadood oo ku sugnaa kooxda Arsenal kooda July ayuu heshiiskan ku dhaqaaqi doonaa. Ramsey ayaa maray tijaabada caafimaadka qaybta labaad ee suuqii Janaayo iyadoo Juventus ay kaga guuleysatay wadahadaladiisa kooxo badan oo ka dhisan qaaradda Yurub. waxa uu noqon doonaa ciyaaryahankii ugu fiicnaa ee ka soo jeeda British dhanka mushaaraadka marka la barbar dhigay ciyaartoyda kale ee UK isagoo qaadan doona isbuucii lacag lagu sheegay 400,000 qandaraaska xidiga reer Walish ee Gunners ayaa dhacaya 30 Juun waxaana Arsenal ay ku qasban tahay in ay sii dayso ciyaaryahanka si xor ah kooda July markaas uu xiran doono maaliyadda kooxda kubadda cagta ee Bianconero. Juventus waxay sheegtay in kooxdu bixin doonto 3.7 milyan oo euro laakiin ma aysan sheegin wax lacag intaasi ka badan oo ku xirnaan doonto heshiiska ciyaaryahanka. Arsenal waxay sheegtay in Ramsey uu sameeyay faa'iido cajiib ah intii uu joogay kooxda waxaana uu ku jiri doonaa wadnaha iyo xusuusta taageerayaasha sida lagu yiri qoraal kooban oo ay soo saartay kooxda Gunners-ka. bogga Instagram-ka Ramsey ayaa ugu mahadceliyay taageerayaasha Arsenal waxaana uu sheegay in uu sii wadi doono taageerada kooxda uu siinayo inta ka dhiman xilli ciyaareedkan. waxa uu soo qoray waxaad isoo dhaweyseen anigoo da'yara waxaan ku jiray dhammaan heerarka sare iyo hoose ee kooxda waxaan la kulmay waqtiyo kala duwan intii aan joogay halkan waan ogahay go'aankan inuu ahaa mid adag waan ku saxanahay inaan waqtigan ka taga Arsenal waayo waxaan doonayaa isbedel waxaan idin rajaynayaa horumar iyo farxad ayuu hadalkiisa ku daray Aaron Ramsey. website-ka kooxda Juventus ayaa lagu soo dhaweeyay Ramsey iyo 488 Everly Xallabo 10